الرحمن الرحيم. سورة الفلق دنبلنكي أمس الصبح سورة لغو مقعابي مدنية مدينة كسودكتي وآيات آيادنا 5 آيات آياديال أو شنوي وعنو ميشان كقلينا سورة دي بقول إيا طبان إيا سدحات أيانو ميشان كقلينا سورة تانية سورة دا كحكتا هل مري إسل سودقين هل أرمى هنا كهد لايان سبو نزول كود إنه حوي إسكو هل شيء واي وحي مناسب أطهي سورة دانو سورة دي هذا إنه كصوب بحنو سورة الإخلاص معايا إلهي سورة دا سحوكو عدي أمر الألوهية أيوكو عدي ألوهية دا وحا أيتاي إلهي نمدا سبحانه وتعالى الله وحوكو صفة وصفة الكمالك ماشان إلهي وحوكو عدينا يا الله سيدا صفاتك إسكاله waxa laga migan galaayo maxaa yeelay la malja'a siwaahu meel la migan galo oo lagu koro oo asaga aan ahayn ma jirto waxyaabaha marka waxa weeye lagu migan galaayo iyo waxa laga migan galaayo ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala labadan suuradood ayuu noogu sheegi doonaa Allah subhanahu wa ta'ala marka hadda suuradan iyo suurada ka dambaysa waxay soo degeen rasuulkeena kaleey salaam من لديه جل لبيد ابن الأحسم أو يهود هاي أيا نبغى سحري أسرع يا قبلك ويسا أيا سحرين سحر كاس أو نبي عليه الصلاة والسلام صامين كل شيء أيا صورة ده نكسود دجين أو إلهي سبحانه وتعالى ساق هذا دونه مركز وحوي إلهي سبحانه وتعالى سحر كود كبرية مركبها المركز وحي كل سحرين وترأه شيء أو مارتها وتر هو ترى منه كوية طبعا أو مارتها جنودات إسكاله إلهي أنا أجيس يا رسولك عليه الصلاة والسلام شيء قاس يا ماشى وكجرو واتلما مثلا هذا السوق هذا دون واسيب بياننا يناه عيلك أو كجري على السوق هي نبي هرتيس الله كيناي سورة ده مركو أخريبة آيات مركو أخريبة كنت ممكن إنك سماشة سوق حلو سحر كوسمي مد أيام فرنا يسه مركز النبي عليه الصلاة والسلام آيات مركو أخريبة مركي كنت أنت صفرته النبي عليه الصلاة والسلام جركيس وحكدر يما يفضيت إلى كنت ممكن لما أنت أي كفرتان markaasuu nabi kaleey salaam wax xari ku xirxiraayo kale oo la furay amal saasoo soo noqday suuradana hada suuradatan waxa weeye oo suuratul falaq waa 5 aayadood mid kale intoodna 6 weeye marka 11 weeye 11 kaas gunudood oo lagu sixray ayayna maartay ku soo degeen isla markaasina markasta wixii markaasi suxarada ay sameeyaan iyo waxa shayaadiinta oo dhan ayaa laga akhrisanaya sida hadda aan soo qaadan doono marka suuradatan هي سورة كذا بيس أحاديث بدنا كسو أرورتي فضائش إسكاليهين مارتيا آدي أدوى وين وين سورة ده ندوى مكينة والله هو مدني لكن وحوي إني مدني تاي أيها راجح معايا ابن عباس هي قتاد دي ركلا انتصاص هي قمصاص أنا صحيح معايا القضية أنا وحي نعضي رسولك عليه الصلاة والسلام يسوي مدينة جوه marka falaa'ishooda waxa kamida markaasi suuradahan rasuulkeena kaleey salaam waxa uu dhahay laqad unzila calay suuratani hadii saxiix weey laba suuradood ayaa la igu soo dejiyay oo ma unzila misluhuma ayagoo kale aan la soo dejin ayagoo kale marka la leeyahay muhaddisiintu waxay ku fasireen waxa weey xagga tacaawidaadka laga wadaa ilaahay lagu meegan galo subhanahu wa ta'ala wa innahu la yaqra ahadna ma akhriyo dhahay ahabba wala akhla inda allah minhuma labadan suuradood حق الله وحلو وجه جعيل بدنيه ولو جه على هنشب بدنيه لكن هو حق مركزي تعاويدات كوي إلهي اللي جم ينكره وهو حلقة حق التحصن كأيه تعود كأيه لولا جيده مركز النبي أنه حوله إن الله ده ابن عامر أو ألا أخبرك بأفضل مما تعود به المتعودون مكوه هما وح مجنجلا وح يكون مجنجلان وح وفضل بدنه مركز سان وحنا وربلا يا رسول الله ليه رسولك سوي ورم markaasuna wuxuu dhahay qul a'uudu bi rabbil falaq wa qul a'uudu bi rabbin nas waxa kale oo kamid ah nabiga kaleey salaam kaana yataawadu min ayni hadiiska Aisha wahay isha jinniga iyo ayuu ka meegeli jiray iyo isha insiga ilaahay ka meegeli jiray maxay yeelay jinniga iyo insigu ishoodu saameynay leeyihiin qomaynimadu wax jira weey rasuulkeena kaleey salaam wuxuu dhahay law kaana shay'un saabiqal qadari la sabaqatu al-aynu hadii uu jir lahay shay isha ka dhaq waxaan ilaahay qadarka ilaahay ka hormar ما جري وي لكن لو أو جري لهاي وقدرك إلهي كسبقية إيش كسبقي لهذا سيمارته ودبات بدنتهاي وحبذنا أنا أحاديث صحيحة يخصو أرورته
markay suuradan soo degtay ay tiri umuna Caaisha nabigu labadan suuradood qaatay wixii ka soo harana waa ka tagay maxaa yeelay quraanka wax kasta waa ka fadli badan yahay tacaawidaadkina ayaga laga helaya waxa kaloo kamid ah rasuulka Kaleey asxaabtiisa bacdi kamid ayuu dhahay akhri oo dhahay qul huwallahu ahad wal mu'awwidatayn saddex jeer akhri yakfiika min kulli shay'in wax kasta saaka kaafaaye waliba marka waxa la rabaa in suuratul ikhlas kan soo marinay iyo labada tan la isku akhriyo ayaa la rabaa ay rasuulku oo dhahay qul man qara'a qul huwallahu ahad wal mu'awwidatayn 3 maratin إذا أخذ مضجعه فإذا قبض شهيدا وإن عاش مغفورا له قفك آخر يقول هو الله أحد إيه معوذتين قل برب الفلق برب الناس وإيه سد حجار آخر يمرك وجيفنايو هدي لعل أو سيد أسكت انتو أسو شهيد هو دمانيا هدي أو نولادنا أسو لو دم بدافي أيو نولانيا هدي هذا مركز معناه أنت أنا أقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل هذا فاصل كلمة كلا ساري وي أنا ما رأيت يا آيات وحي رسول نزول كذي عن سوق هذا رسول كان عليه الصلاة والسلام مرك أو كسرنا لابطي حديبية ماشي لده جري سنة كذي الحجة والصلح لده صلح الحديبية هرام أصاب مرنيه سنة كمارة يا اللي حد آخر كده ويا قديسي سنة كده ضبط بلوي سي هذا وعصوق شبيش محرم وسنة كده ضبط أي قبل عبانة شبيش السكادة صومالي يقانين وقعد خيبروه صو النبي عليه الصلاة والسلام ودنا يهود خيبر أيو سوق من كبي مركز دواتاس مركز عضي أو مارة يهودي أي كل عضي أيا واحد وين مكر رؤساء اليهود هاي وحيوي ماذا لبيد ابن الأحسن من كليرة هو أصلا يهودي هاي مركز إن كانوا حو حليف الأهجروا مركز أو إصبحيس أو لا هاي أمولان ولا هاي نمل ليرة بني زريق أو عربتها ساحر وين وهاي مركز أو حير هذين نين كانوا السحر بدنات هاي أنا محمد واحد بدنا كو سحرنا سحر كان حوا سامي واي waxaan ku yeelaynaa xoolaan ku siinaynaa waxaan xoolaas ku siinaynaa waxaan rabnaa inaad Muhammad sixirto sixir oo saameeyo oo dhibaato saddex diinaar ay maaratay ay waa ku siihaynaa dhehen sixirowgu meel xumowla yahayo waxaan naf lahayn kuwa quraafiisaasha waxaan naf lahayn ay qaataan mayagoo haddana dimbaabayo waxa sameeynaa markaasuu wuxuu yimid wiil yahuudi ah oo nabiga kaleey salaam u qadmay jiray markaasuu yahuudnimadaas uu soo dhawaaday ilaa uu ka qaato nabiga kaleey salaam shala uu ku shalaysan jiray jajabkeedii oo ka qaato iyo nabiga kaleey salaam waxa weeye timankiisa wax yar oo ka go'ayo waxaasoo isku aruursaday markaasuu sixirka ku sameeyay waxyaabaha sixirka uu ku sameeyay waxa kamid ah wuxuu sameeyay suurad oo shumac ah uu sameeyay oo nabiga kaleey salaam suuradiisa oo ka sameeyay geed shumacina soo qaatay suuradaas ayuu markaas waxa weeye oo nabiga suuradiisi shumacaas uu ka dhigay ayuu wuxuu geliyay markaas ibrow geliyay cirbado ayuu geliyay cirbad markaas ayuu geliyay 12 cirbadood ayuu ku muday markaas waxa weeye ayuu duuduubay markaas wuxuu ku duuduubay waxyaabo khuraafaad oo ku akhriyay saada soo bareynaa markuu nabiga kaleey salaam aayad uu akhriyo guntimankii halkaas uu ku xiray ayaa mid iska furahaysa markaas nabiga kaleey salaam jirkiisa markaas ay ka go'ayso xanuun uu dareema hadana isla markii raaxa ayuu dareemayaa mudada nabiga kaleey sixirkan hay waa la soo khilaafay fartan maalmood ay ahaday 6 bilood ay ahaday sanad ay ahaday ibn hajar waxa uu dhahay isagu saasa mu'tamada way hadii la yiraahdo mesela rasuulka kaleey salaam sixir say u saameynaya asagoo macsuuma oo ilaahay naska quraanka wallahu ya'simuka min an-nas oo dhahay waxa la leeyahay macsuum waxa nabigu ka yahay wixii khabalnimo gaasiinayo aqligiisa wuxuu dhimaaya ama shariicadiisa dayacaya ama geeri u geysanaya laakiin waxyaabahan kale amraasha sida ummadda uga mid ah uga jira badnaay waa ku dhici karaan rasuulka kaleey salaam amraasha oo marka amba ahradul bashariya la yiraahdo nabiga kaleey salaam xaqiisa way ku banaanta maxay waxa kamid ah dagaalkii oo Uhud waa tii nabiga kaleey salaam laguna daqray foolashiisana lagu jabiyay اسمه النبي عليه الصلاة والسلام أرنتاس وحول إمي ميسو بعض المبتدعة أيها إنكري الحديث كان حديث سحرك أيها هو الشيغان أيها إن منصب كالنبي أي وحول إمي ميسو لكن وحبا كام جيران ورقوداس وبعض الوي وعكالو الشيغتين النبي عليه الصلاة والسلام سحر إنه كوبانا نادو أو أنبياء مركز أما أنبياء بالله سحره وحي قارسي هيسا إن لغو كالسونا وأي دهن شرائع دودا تاس إذا وحبا كام جيران وي marka hadda waxyaabaha nabiga kaleey salaam oo soo arooray qisada sixirku waa fara badan tahay waxyaabaha nabiga sixirkaas uu gaarsiiyay waxa kamid ah leeyri nabiga kaleey ahlkiisa xataa waa u tagi waayay
oo naagihiisa xataa waa ka reebtoomay umuna Caaisha siday sheegtay nabigu calayhi salaatu wasalaam ahalkiisa u tagayaa maaragtay wuxuu markaas u malayhayaa xataa inuu u tagay asan u tagin macnaha waxa weeye nishaad ayaa u daahiraya sida caadiisu ahaa jirtay haddana markaasi awoodii baa ka tagaysa oo haweenta markuu dhawaado arinta markaas waayo waxa ku dhacay arintiisa marka halkaas maaragtay ay markaas ku socweeyaysa sida maaragtay dadka macquudka shaqnigoodu u yahay umuna Caaisha xadiis laga wariyaa waxay tiri arintaas hal sanay ahaday tiri oo waxa markaas ibn Abbas laga wariyaa rasuulka kaleey salaam sixirkaas waa ku jiraday waxaana laga xarimay laga reebay oo ka haray haweenkiis iyo dacaamka iyo sharaabka ataa u diiday marka arintaas waxay daliil u tahay in markaas nabi cali daahiru jismihi lagu saliday aki aqligiisa iyo midniya hawshiisa oo waxiga iyo shaqadiisaas waxba ma dhimayn madhabta ahlus sunna waxay qabaan sixirku waa shay jira oo xaqiiqo iska leh qowl iyo ficilna waa ku ahaada anwaacdiisa waxa mid leeyahay siimiya la dhaho waa xiyal oo sanaaciya oo lagu gaaro kasab lagu gaaro waxyaabo badan ayaa markaas lagu sameeyaa laakiin sixirka waxaan uga soo hadalnay iyo xukunkiisa واتبعوا ما تدعو الشياطين على ملك سليمان هل كاسان uga soo hadalno loola laabanaya suuratul baqara ayaan uga soo hadalnay sixirkan marka waxa weeye nabiga sida lagu ogeysiyay nabiga kaleey salaam waa hurdaaya leeyri marka asagoo hurdaaya ayaa waxa weeye markaas laba malaga u timiday mid waxa weeye midigta uu ka fariisay mid bidixda midkii midigta fariisaa waxa uu dhahay markaas ninkan maxaa haaya midka kala dibiyaha sixir ayaa sixray Labiid ibn al-Ahsam maxuu ku sixray waxa dhahay marka shanlo jajabkeeda iyo waxa weeye tint iyo waxyaabahaas xagee yaala waxay yaaliin oo dhahay markaas ceel jiridiisa yaal halkaas uu gaarsi oo geeyo dhahay ceel la dhigay Rudarwan nabigu waa soo baraarugay Sayyid Ali iyo Zubayr iyo Ammar ibn Yasir ayuu faray inay biyaha soo bixiya ka soo baxshaan biyaha banaanka la keenay ayagoo cilaan amal noqday sida sixirkaas u saameeyay markaas waxa weeye markaas halkaas wixii laga soo bixiyay markaas sidaas sixirku ku fashalmay بس هذا وحوي أيضا وقت ونوج جابيه أيضا فسرينا إلهي وحده سبحانه وتعالى قل وحاتي رسيدك محمد كهو أعوذ واحد من جلية برب الفلق رمبلا كرب جيس الصبح وي من شر ما شيء شرتي سان كم جلية خلقه أبوري وهو حوي حيوان مكلف إيه غير مكلفة سيد الصمت وكله إيه ومن شر غاسق مثل المنا يا شرتيس إذا وقت وقبها بينك وقلوب مقديابه ومن شر غاسق مثل المنا يا شرتيس إذا وقبها بينك مركو وقلوب إيه ومن شر النفاسات كو جنتما أفوفاي شرطه في العقد جنتما كأفوفاي سواحرت واي ووحيابها جنتما كهاي كسمايين أي وح خرافات كو آخرنا يا إيه ومن شر النفاسات كو أفوفاي شرطه في العقد جنتما أفوفاي إيه ومن شر غاسق ومن شر حاسد أيادينا مت حاسدة شرتيسة إذا وطي حسد كوموجيو ومن شر حاسد شرتيس حاسد كان ولا غارسة إذا وطي حسد أظهر حسد وحسد كيس أموجيو وهو حسد ككين لا يوصم يصير هذا نين كان يهودي قال هي قبله سو كلامته 10 كان انت سوق أجي هاي والله سبحانه وتعالى علم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.